بروديق مظاهرات aad u fara badan ay uga barodiiqayaan geeridiisa ilaa iyo xad nin dabeecad noocay uu ahaa maxamed warsame nin waa nin aad u dabeecad wanaagsan buu ahaa nin wuxuu ahaa ma taqaanay qaali u ahaa nin wuxuu ahaa ma taqaanay deeqsina wuu ahaa nin dabeecad wanaagsan wuu ahaa oo umad kastana oo la shaqeeyo ama kuwa ma taqaanay oo ku aqnoolba oo aad u tixgeliyo nin xagga aqoonta ku fiican buu ahaa Soomaa nin aqoon wuu ahaa الله نحرسته طبعا برنامج كان قيبه بدن بان كسو قادن دونا oo tiraayada tacsida maxamed warsame inkastoo aan la ogeyn ilaa hadda cid shay wuxuu ku dhintay dhawaan bam ka qarxay gaarigii isagu uu watay allah naxariisto agaarka madaxtooyada dabcan wali ma jirto cid sheegatay inay ka dambeysay dilkiisa xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay arintaasi inay ku daba jirto dhawaana ay ka soo saari doonto wixii dilay dabagalkeeda ay ku hayso dabcan waxaan sidoo kale aan leenahay allah caafiyo xildhibaanad aamina xildhibaanad aamina xildhibaanada hor kamid ahayd ku noolayd magaalada London kana mid ahayd gabdhaha Soomaaliyeed aad ku firfircoon oo ku dhaado dhaawac ka soo gaaray qaraxaas isbitaalna u jiifta magaalada Muqdisho waxaan leenahay ayadana allah caafiyo inta aanan dadka tacsidooda u gudbin maxamed adigu cabdi adigu waxaad ii sheegtay in maaragtay aad ka mid ahayd raggii damaaciyay xilkan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xilligii dawladda federaalka ay timid oo codsigaaga aad geysatay waxa weeyada la hadalhayaa in ra'iisul wasaare madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku jiro xulashadii ra'iisul wasaaraha dabcan adigana hadda ka hor waxaad ahayd dadkii isu soo maxaad adigu ku daraystay waagi hore aad ku weyday inaad noqoto xilka wallahi aniga kaliya ma hayno wuxuu ahaayeen rag badan baa waqtiga farmaajo ka mid ahaa cabdiwali baa ka mid ahaa oo asagu ahaa ra'iisul wasaarihii ma taqaanay markaas xilka hayay kulligeed waa wada geysanay qof buuna calafku noqon lahaa calafkiina waxa uu helay saacid waa ka qayb galay waana tagnay anaku waan waxyaalo badan baan u geeyay madaxweynaha inaan qaban doono hadii ilaahay idmo hadda ma dhicin waxa maalinba qof baa calafkiisu yahay calafkiisa hadda saacid baa helay asagina hadda maanta seeg marka waxay arin weyn bahayd qof kastaba Soomaaliya wuxuu aaminsan inuu wax qaban karo dalka umadiisa haduu chance ka helo waayahay haddii aad ka mid noqon lahayd shakhsiyaadka ku guuleystay arintan oo markii ayada ahayd haddii lagu dooran lahaa bal maxaa dadka u qaban lahayd bal u sheeg dadka waxaad u qaban lahayd wallahi waa su'aal fiican waay waxaan u qaban lahaa wax badan ilaa hadda aan la qaban lahaa markii oo aan isleeyahay waa qaban karto waxa ka mid ahaa inaan ammaanka wax ka qabto waxa ka mid ahaa inaan wax ka qabto ciidamada si ammaanka sample ciidamada kale waxaan ka qaban lahaa ciidamada hadii yihiin police iyo hadii military yihiin nin kasta oo Soomaali ciidan ah inuu mushaar joogto u helo mushaarkiisana oo bil kasta kooda qaato markuu inta asagoo helo ka bacdi aan u dhisno isgaarsiinta u dhisno ciidamada transportka u dhisno logisticada u dhisno kuwii gaadiid ku qaadi lahaa alku subsan waxaan wax ka qabanno welfare-koodi oo kuwii kii dhaawacma oo askariga dhaawacma si loo siiyo daawo lagana warqabo iyo caafimaadkiisa kii dhintana asaga qoyskiisa laga warqabo oo haddana aysan dhicinba cabdi nin walba baa markuu xilka soo dooranayo ereyadaas aad ka quruxda badan ku hadla oo yiraahdo anigu xilka dhulka soo kala xirhaya xaggan soo waxaynaya mushaarkan bixinaya shaqaalaha baahi meelayso xildhibaanadu waa dharjinaya dhulkoo dhan badweyn baan ka dhigaya beerihiiba hadhowna lama arko marka ma isleedahay waxbaad qaban lahayd haddii aad waagaas waa runta duran because that's the question kama sheela qof kasta waxbuu dhaawaa qaban karaa madaxweynaha hadda jooga kamid ah saacid baa kamid ah ragii ka horeeya kamid ah laakiin anigu tirada ka duwaneed because waxaan qaban lahaa exactly qofku waxa run in la helo qof u daacada dalka iyo dadka anigu waxaan qaban nimankan markasta imaanhay dantooda gaarka fiirinay dadka ma fiirinay because haday dadku waxa u baahan yihiin loo qabto oo exactly ciidanka intii mushaar in qof bilaadanka ninka ciidamadu waa inuu qof voluntary yahay yahay qof ma taqaanay mushaar shaqaalaha mushaar qaata ninka qofka shaqaalaha mushaarka qaatay waa inuu mushaar helo caafimaadkiisa helo waxbarashadiisa helo welfare-kiisa helo iyo in asaguna uu leeyahay in qof xilli shaqada soo galo iyo xilli ka baxo adduunka ma dhacdo qof ciidamada hadda wax Soomaaliya ka jira ciidamadii waska yacsiin tiradooda lama yaqaano ciidamada mid kale hadda ogta hadda maanta Soomaaliya ka jira waxaan ka qabto waxa kamid ah inaan ciidan qaran ka dhigo hadda ciidan qaran ma hadda fiirso gada ciidan baa lagu tababaray gaara oo sida looma tababarin sidii loo tababaray ciidamada sida Sierra Leone iyo mataqaanay iyo Guinea waxa la sameeyay Sierra Leone Guinea ciidan baa laga qaaday for example meeshii ay joogeen marka la dhisay qarankooda ciidanka qarankooda wadamo burbur ahayeen ciidankii baa la qaaday waxa ciidamo kala duwan baa la isku daray
oo waxaa laga qaaday meesha u dhasheen deegaanka u dhasheen baa intii laga qaadaa tababar looda siiyey waxaa la geeyey meel ka baxsan deegaankoodii si ugu noqdaan dowladda iyo dalkooda daacad ugu noqdaan waxyaalahaas waxaa ka mid ah ilaa haddana maanta dowladda jirta lama sameyn waxaas ciidamada haddaa jirtid balweyna kuwa lagu tababaray balweyna loo daaya geda kuwa lagu tababaray geda loo daayay kuwa waxaa lagu tababaray Kismaayo sidoo kale waa kuwa gobolada dhexe kuwa Puntland kuwa Khartoum State kulli mid walba meeshooda lagu tababaray meeshada loo daayay marka ciidan qaran ma noqon karaan waa istiin waa ciidan qabiil oo tuuto loo gashay laakiin waxa wax qaban kara marka ciidanka la qaado ciidan kala duwan la isku daro oo ka yimid dhinaca kala duwan oo wadan ka yimid la sugeeyo kuwaas waxay noqon karaan ciidan abdi maadaama markii hore aad ku guuldareysatay hadda rajo ma kugu jirtaa maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xulasho ku jiro oo dowladdii ra-iisul wasaare saacid uu ka ahaa ra-iisul wasaaraha ay hadda kalsoonidii lagala noqday ma ku jirtaa hadda ma ku tala jirtaa hadda inaad xoogaa isku rulayso marraba markii hore horta way ku jirtay inaan soo galo arrintan laakiin markaan arkay waa ka noqday inaan arrintan ka qayb galo sababta ugu kaliftana waxay ahayd markaan arkay sidii dee ra-iisul wasaare saacid loola dhaqmay oo nin Soomaalina ahaa nin ra-iisul wasaare ahaana loona diiday baarlamaankii kama ma soo gali kartid asagoo ku hayo war anigu waxaan ahay qof shakhsi ah diin gaala iyo mid muslim ama sharci maadi mid muslim wax ogol yihiin qofka hadii dambi lagu soo ogo in dambigiisa asagoo marka hor yimaado oo isku cadeeyo ama diido waa loo diiday waxa kale ku xigtaan ama waga badan mar dambe inaan soo sharaxin inta oo hadda arintan jirto waxa kale kamid ah in ay dhacday ra-iisul wasaare saacid nimankii wasiirada u ahaa intay yimaadeen ay baarlamaankii codki ka geysteen ay dhaheen ma taqaan dowladda annagu ka tirsanay baan ageerista ku nahay oo ka soo horjeednaa mar gudoomiyihii baarlamaankuna uma ogolaan jawaar inuu dhaho war adinka haddaad ka soo horjeedaan dowladdiina marka hore maxaa soo casili weydeen bas qofka bini'aadamka markuu wuxuu dowladdu la jiray markuu iska casilo buu dhihi karaa markaas waxbaan ka qaban kara laakiin dowladda ka tirsan oo wasiirka ah xagna lug kula jira baarlamaankina ritaankiisana dowladdii lug kula jira taas waxyaalaha uga gabada ka mid waxaa kaloo ka mid ah markii jawaari uu dhigay xaflad ah u dhigay isaga madaxweynihii ay u dhigeen ay leeyihiin waxaan maanta xafladan u dhiganay riditaankii saacid midda kale ka dareed waxay in ninka la yiraahdo sheeg maxamed warsame marka adiga ma cabsi waa ku gashay marka hadaad sharaxdo waxa igu kalifay markaan arkay midda kale maxamed warsame oo madaxtooyada gool lagu dilay majliska lagu dilay waxa arkay marka inaan meeshan dowladnimo la rabinba oo midda kale aan haysta adduunkiina de already wixii u dagaalameynay laanahay wadoood waxaan lahayn Soomaaliyeed oo aan u dagaalameyn lahayn waxaan nahay mataqaanaa dowlad adduunka laga aqoonsaday waa tii Yurubta nagu dheen hadda waan hayaa masuulkeedii iyo waraaqaheedii meeshaan aan ku hayaa mid kamid ah hadaan ku tuso insha Allah waatan amaanaa waa sax mid kamid ah waatan ninka EU-da u qaabilsan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya markii shirkii 7 bishii July November oo wasiirka arrimaha dibadda ay ku eedeysay Yurub in lacag Soomaaliya siin wuxuu ku dhahay lacag Soomaaliya waa siinay laakiin anagu saacad ma siinay dowladda Soomaaliya adiga aan ka dhex galo markaad adiga aad leedahay macnaha musharax baan hadda ka hor soo noqday qaladaad uu dhacaa bini aadankuna awliye maahan qaladaad uu dhici karaa everywhere adduunka dhan buu ka dhacaa qaladaadku marka sababta hadda aad uga noqotay inaad is sharaxdo oo aad ayaan dhaxdaarana internetyada iyo inaad is sharaxaysay arrimahan ay ku jirtay ma waxaad is leedahay madhalalahaas yarka hoose baad ku qasbay mise waxaad is leedahay jamaamir ka culus baad jirto meesha ka waxa ugu kalifay waxaan arkay arrintu inay meesha inaan dowlad balariinba sababtoo ma dhici karto gudoomiye baarlamaanka Soomaaliyeed inuu saas u dhaqmo waxa kaloo aan iga siyaabiyayba in ninkii sida maxamed oo kale geesi ah oo sheegtay inuu ma taqaanaaye in waxaan in dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed damb u ahayn markii ay gaartay gacanta ka hal gaartayba oo ummadda dadka muqdisho joogana maalin kasta qaylada ka dhacay cabsi kale ma gelin waxa kale inaan wax la rabinba oo hadii at least hadii qolada maxtooyada qaldanto waxa la qolada baarlamaanka wax saxaa midna ma dhacday waayahay aan ka gudubay taas dabcan maadaama aad arrimahan u kurgashay teer iyo dowladii Arta Cabdiqaasim dabcan ra'iisul wasaarihi madaxweynaha isqilaafahayn kuwaan hadda ugu horeyn ilaa iyo jarjarad waxay soo taxnayd dowladii lagu soo dhisay Djibouti ra'iisul wasaaraheedii ra'iisul wasaaraheedii ilaa iyo mid hadda la joogo ugu yaraan 9 ra'iisul wasaare madaxweynihii kasto yimaaday ra'iisul wasaarayaashu waa isqilaafaan maadaama haddaad u kurgashay arrimahaas maxaa ka sababi kara isla khilaafaadka noocaas oo kale horta waxa sababi kara
midda ugu horeysa waageed hadda markii hadda tan la soo dhisay dowladda hadda jirta la soo dhisay waxay ahayd in niman waxaa la dhahay aqoon-yahano oo waxaa la soo dhisay baarlamaan niman waxaa la soo dhisay ra-iisul wasaare aqoon leh madaxweyne aqoon leh oo madaxweynuhu hal iyo laba saddex jeer uu dhahay anaku marna isma khilaafin oo adinku saxaafadda ay weydiiseen waxaa keenaya dadka marka hore meesha la keenahayn dad daacad u ah dalka iyo dadkooda ahayn oo dana gaara fiirinayay waxaa kaloo ama ha ahaadeen qolada baarlamaanka joogta ama ha ahaadeen qolada madaxda madaxweynaha ka iyo ra-iisul wasaaraha ka waddanka ha ahaadeen from top to the bottom ayaan ka ahayn daacad dalkooda iyo dadkooda inay wax u qabtaan tan ugu daran oo keenta saasna wey waa tan hadda maanta dastuurka lagu tuntay waa ujeeda dastuurkii ninka la yihahdo guddoomiye baarlamaanka ku tuntay waa mar kastana waxaa imaanaya nin oo raba asagu qof shaksiyan oo raba in dantiisa kaliya u jooga meesha aan u joogin danta shacabka iyo ummadda soomaaliyeed waxaana keenaya waxaas oo dhan qofku waa inuu marka hore daacad u yahay inuu dalka hayala leeyahay oo aaminsan yahay inuu oo target leeyahay for example haddaan Soomaaliya soo qaato David Cameron markuu halkan la wareegay ninka ra-iisul wasaaraha ka waddankan Ingiriiska wuxuu dhahay waxaan jarahayaa meeshan uguma imaan buu dhahay lacag oo dowladda igu horeysay lacag uguma imaan wuxuu dhan waxa uu yimid waraaq buu dhahay waraaq baan u yimid muxuu sameeyay target baan sameynaa oo leenahay oo higsanayno oo ah inaan jarno deynta lagu leeyahay inaan dhinno lacagaha lagu leeyahay inaan shaqaalaha dhinno wasaaradaha dhinno tii ugu dambeysay ciidamada aan dhinno oo aan ku sameyno reform ciidan yar oo quality la ka saaro wuuna ka dhagay nimanka nooca hadda madaxda nooca Soomaaliyeed iyo baarlamaankooda ma lahayn meelay tiigsanayaan oo dhan at least war sanadkan maxaan qabanaynaa way lahaayeen dabcan 6 qodob baa jiray 6dii qodob oo madaxweynuhu ballan qaaday inuu ku soconayo 6dii qodob oo ay kamid ahayd amniga ay kamid ahayd cadaaladda ay kamid ahayd maxaan ku dhahaa soo celinta public finance hawlo badan buu la yimid oo macna badan baa jiray 6 qodob baa jirtay 6dii qodob qaarna waa hirgaleen sida la sheegay qaarna wali ma hirgelin waqtigeedana sugahayaan laakiin markaan dhanka kale aan aado hadda adigu waagi hore musharaxiintii baad xogaa arjigaaga gudubsatay hadda madaxweynuhu wuxuu ku mashquulsan yahay inuu soo xulo maxaan ku dhahaa ra-iisul wasaare cusub dhinacan kenya loo baahnaan karaa baad isleeyahay adigu haddaad aalagaaga kaasho waa runta horta bal waxaan ku noqdaa waxay 6 oo madaxweynuhu dhahay waxbaan ka qabanayna oo hadda 7 May inta ugu la yimid waxa laga qabtay intii midna ma jirto hadday ammaan ka tahay hadday public finance reasonka loogu diiday ninkan la yiraahdo Adam oo iyadu u qabsan minister u qabsan finance ku qabsan wuxuu dhahay Adam 7 May halka ma ka yimid buu dhahay anaka Soomaaliya lacag waa siinayna laakiin lacag dowladda Soomaaliya ma siinayno because they don't have public finance that 7 May baa 7 bilood kadib ma 6 bilood kadib isla intii buu masana qiray because inaan dowladda Soomaaliya waxana samaysan ammaankiina wax laga qabtay male cadaaladii dadkii ugu dambeeyay maalin kasta dadkii waa la dilaya xoolahoodii baa la dhacaya waa ogay waxa ka dhacay kufsiga ee dadka isku soo eedeynay madaxweynaha Maxamed ka hadlayay waa ogtay hadda maanta ugu dambeysay qof dad guriyada karsan ugu dambeeyay wuxuu dhacay qofkii xamar gurigiisa ku dhisan waayay 6 bilood 3 bilood gudahood waa kala wareegaya adoo raalle tarsan newska hadda ba maanta newskeedii buu ka hadlayay wuxuu yiri anigu ma oran wareegtadaasna anigu ma oran guriyaha la wareegaya meel gaar oo cayimay uu yiri dadkii leh adigu si kale cudurdaar u sameeyay okay magtiga soo noqonaa su'aashaadii ahayd ma taqaan su'aashan ku soo noqonaa su'aashaadii ahayd ma taqaan ninkee loo baahan yahay waxa loo baahan yahay nin qof daacad ah aqoonyahan kale loo baahna waxa loo baahan yahay qof daacad dalkiisa iyo dadkiisa oo target oo wuxuu qabanayo oo ku dhaw waxaan qabanaya qowlka asagu dhaho ka dhabaynayo oo si hadda ku aragn madaxana kale ahayn qowlka asagu inta dhaw waxaan rabaa inaan qabto 6 bilood ugu horeysa inaan ciidamada mushaarkooda joogto ka dhigo for example inaan ciidamada ma taqaanay u sameeyo communication-kooda u dhiso dadka Soomaaliyeed caafimaadka wax u qabto dad maalin kasta ogta xamar dadka qarxa ka dhaca waxa la rabaa inuu u sheego caafimaadka ka qabto isbitaalada community qalab fiican la geeyo oo dadka ambulance soo qaas special oo qarxa dhaco qofka intuu istaag soo gaarin buu dhintaa ama asagoo wuxuu la keenaa nearly dead ah sababtoo ah ma jiro dad qualified oo dadka ku daaweeya meesheeda waxa loo baahan yahay nin aan wax loo soo qorin asagoo xaq u leh wuxuu baarlamaanku u siiyay sharciga Soomaaliyeed u siinayo inuu ma taqaanayo inuu xaq u leeyahay qabsanayo aan nin uga gabanayn madaxweyne uga gabanayn gudoomiye baarlamaanka ka gabanayn aan liisna loo soo qorayna dhahay anigu waxaan rabaa inaan qabto waxaan intuu sheegana uu ka dhabeeyo ninkaas qofkaas kale loo baahan yahay ninkaas la rabaa leedahay ninkaas caankaas kale la rabaa waayahay dabcan dadweynaha qadka waa u fasaxi doonaa barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay koow aan ka bilownay tacsidii
loo dirahayay xildhibaan maxamed warsame allah u naxariisto iyo weliba dhinacan keebaad jeclaan lahaydeen in laydin doorto ninkaan mar hore musharax xoogaa u arjigiisa dhiibtay laakiin waa laga soo tutukroonaade haddana iskiis buu yiri anigu uma socdo dabcan marka dadweynahana barnaamijku waa nagala qayb qaadan doonaan haddii alla yidhaahdo halo madasha qofka ugu horeeya halo halo waa yahay inta aanan dadweynaha sugayno aan bal eego sidee u aragtaa qaabkii lagu riday xukuumaddii hadda dhacday waxay ahayd taas su-aal fiican waay waxa ahayd si aan adduunka iyo aan weligeed lama qalba oo mar dhow meelaha tiyaatarada mataqaanaa dadku qosolka u yimaadaan nala kusoo dari doono iyo telefishinada sababtoo ah dastuur looma raacin because meesha ma olinba mooshin waxaa yaalay laba nin oo isqabatay oo ra-iisul wasaare u dhahay waxaan ku kala baxaynaa mataqaanaa baarlamaanku qaar ka mid ah sheegay waxay dhaheen labadaa nin waxay isku haystaan xoolihii qaranka iyo dadka Soomaaliyeed bay isku haystaan aan labadooda keenno baarlamaanka aan baarlamaanka wax ka weydiino waxay isku haystaan si xun baa lagu riday oo mataqaanaa waxaan u yeelay jawaarina waxaan leeyahay wuxuu ka galay mataqaanaa dadkii shacabka Soomaaliyeed waxaan qiyaamo uu ku sameeyay sababtoo ah wuxuu intuu telefishinka hadlay intii markay saacid arintooda soo baxday buu dhahay baarlamaanka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed u daaya waxa dhacday in mooshinkii uu meesha ka bilaabo oo war mooshinkan waxa ka horeeyay nimankan aan horta kala hadallo mooshin dawladii hore ku dhacay dawladan waa ka duwanta dawladii hore dawlad barma weeye Soomaaliya wuxuu baahan wax fareesha aan ka joojino muu dhihine wuu hor socdo wuxuu saacid markii arintiisa ku laatay saacid wuxuu war aan ku imaado mataqaanaa ra'iisul wasaare aan ka hadla baarlamaanka gudoomiye maadaama aan xaq u leeyahay qof Soomaali ah aan isdifaac wuxuu dhawax isdifaacisa ma jirto taasa kamid asagoo u ogolaaday saacidna u diiday wasiiradiisii oo xilkiis ka casilina uu meesha ku cusumay inay cod ka qayb qaataan waa wax aan dadka hore soo marin mana hubo madaba in soo mari doonto laakiin wax oo history gari doonto waxaan leenahay jawaarina leeyahay gudoomiye raali gelin ka bixi arintaasi inay suxun u dhacday waa adiga u jeedaa shacabka Soomaaliyeed u jeedaa international community u jeedaan haddana waxa socda mataqaanaa arin la rabo in mataqaanaa evidence la helo because qaar baarlamaan kamid ah ayaa dhahay in meeshii mataqaanaa in corruption dhacay wax maris badan dhaceen oo qaarkood ka dhaheen telefishinkii baarlamaanka bartankooda ka dhaheen in madaxweynaha asaasna dhahay rid marka anigu ma wada laakiin afkoodan ka hadlaya wixii baarlamaanku sheegeen in arintaas ahayd oo hadda waxa la aroorina evidence-gii iyo wixii camera ama wixii la hayo si adduunka mataqaanaa tilaabo u qaataan hore tilaabo ka qaadan Soomaaliya lacag ma siin dambe dawladda Soomaaliya lacag ma dhiibeyno marka waxaan leeyahay mataqaanaa jawaari arintan intaan soo halaabin waxa dhici doonta mar dhawaan fogeyn marka ma evidence yimaadaan hadda tii bangiga ka dhacday waa ogeed ceebtii ka dhacday bangiga dhaca Soomaaliya gabadha iska cashay intay ay tagtay meesha la yiraahdo Dubai isku calsishay waa ogtahay waxa martay marka waxaan ku leeyahay gudoomiye arintan raali gelin ka bixi shacabka Soomaaliyeed raali gelin ka sii ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed ka si arintu markaas loo arko dad mataqaanaa gar qaadanayo dekooda qof bilaan ku qaldami kara qof mataqaanaa qaldami kara ma jirto marka waxaan ka rabaa inaad shacabka Soomaaliyeed hoos tagto oo dhaada raali ahaada arintaas si xun baan u handal gareynay laakiin way dhacday raali gelin ka baxan ku dhaaya dabcan gudoomiyaha kaligiisa burki dusha kala fuushay dabcan waxa way gudoomiyaha wuxuu sheegay in hadii uu ra'iisul wasaaraha hadlaayo iyo hadii ay ogolaanayaanba uu baarlamaanka ka qaadi doono cod intii badnayd baana farta taagtay oo dabcan tiri ra'iisul wasaaruhu ma doonayno inuu laga hadlo marka dabcan soo asagu xor ma ahan inuu xogaa xorriyad siiyo xildhibaanada ma waxa ahayd mataqaanaa ma oo lama su'aashaan inuu keenaba because qof dambi loo uga haysto waa in dambigiisa horta asagu hor yimaada waxa jirta adduunka haddii qof dishay waa in lagu hor keenaa maxkamadda lagu dhaho magacaaga sheeg qofkan ma dishay haddii dhahay qofkan ma dilin waxa lagu leeyahay guilty ma tiid soco noqo waa noo muddo kale imow ilaa evidence la keeno marka waxa la rabaa in mataqaanaa marka hore loo yeero inuu hordhigo ma ahaynba waa qalad bahayd inuu gudoomiyuhu mataqaanaa hor keeno arintan baarlamaanka marka hore waxa inuu good hadaa saacad arin laga keenayo oo arinta inay dhex galeen keena ninka la yiraahdo ishag mataqaanaa in loo saacad gudoomiye wasaarihi hore Soomaaliya ha yimaado ha ka hadlo baarlamaanka ma hala dhageysto marka doodsan la dhageysto bas marka in la dhahay waa maadsan tahay iska bax kabacdi marka go'aankooda qaataan haddii ridahayaan haddii deynayaan laakiin wax qofka Soomaaliga ahi oo u leeyahay xaq bay ahayd
adduunka gaali iyo muslim qof kasta xaq wuxuu u leeyahay inuu mataqaanaa ka hadlo maxkamadda horteeda ama meeshii oo dacwo qodi kusoo ogto inuu ka hadlo laakiin asaguna qofkii la oran dacwo in la dhaw bas ma imaan kartido marka annaka go-aan kaa gaarayna khalad weyn bahay waxaan dadka soo marin bahay waaya haddii aan dhanka kala fiiriyo hadda dowlad cusub baa lasoo dhisi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud dabcan wuxuu ku jiraa xulashadii ra-iisul wasaaraha waagii adigu aad xoogaa arjigaa geystaba ka soo qaad haddaad adiga ahaan lahayd hadda xaalad waxaad moodaa inay xaalad adag taagan tahay soomaaliya goboladii jubbooyinka oo maaragtay heshiiskii dowladdii kula galay muqdisho iyadoo heshiiskii labaad ka dhicin baa hadda golo wasiire la magacaabay bay iyo bakool waxay ku jiraan shir adag oo maxaan ku dhahaa maamul ay ku samaysanayeen 6 gobola puntland mar hore xiriirka u jirtay caqabadahaas oo dhan baa taagan marka bal adigu iska soo qaad haddaad ahaan lahayd adigu maanta ninka la yidhahdo ra-iisul wasaaraad xageed abaari lahayd arrintu waa arrin adag wey sababtoo ah arrinta jubba waddankaas ka bilaabo jubba arrinteedu muddo dhan bay socotay dowladda ay isku haysteen wasaarihii hore ee saacid isku afdhaafeen waa tii arrintu sida noqotaba aakhirkii madaxweynuhu iyo wasiirka xamar lagu heshiiyey wasiirkii madaxtooyada Itoobiya la tagay ku dhamay inta kale xamar lagu heshiiyey la dhahay nimankii inta dambeysay ay saxiixeen oo la nimankii xabadda ka ridahayay oo soo weerarayay nimankii kaleba Axmedow groupkiisa wana ku shirtaan ee qolada Jubba ina ku shirtaan meesha la yiraahdo ay sheegeena ina ku shirtaan Kismaayo again tii hadda socota oo madaxweynuhu u ogolaaday nimanka Jubba in xilkooda sii haystaan iyo dhulkoodaas ay sheegteen ay sii haystaan oo ay ka madax yihiin oo la dhaho Jubba from Gado ilaa Kismaayo waxa soo baxay arrin cusub ah niman walaalaheena intay Baydhabo ku shirayaan oo ay dhaheen goboladii madaxweynuhu u ogolaaday u saxiixay Jubba u saxiixay inay dhaheen goboladaasi baa 6 gobol hadda u shiraan ka baan adiga iska soo qaad bal adigii waagi hore arjigiisa maanta oo kale haddaad hawshaas gali lahayd caqabadaha waa la ogyahay aad sharaxaysid adiga iska soo qaad xageed wax ka abaari lahayd waxaan ka abaari lahaa horta dadka already arrinta Jubba waxa la soo hadda wasiiradii soo dhiseen wada oo dadka kale oo hadda in ka soo horjeeday u yeera ku soo dara dawladdiina ciidamada banaanka taagan oo xabad isku haysataan inkastoo xabadii hadda xabadujin socod dhacday u yeera ciidamada lagu daro nimankan kale walaalina ka sii ayaguna maamulka la wadaageen sida heshiisku ahaaba waxa marka walaalaha reer Baydhabo oran lahaa arrintan way dhacday mar hore u dhacday ka bax ka saara meesha la yiraahdo ay sheegeen in gobolada dheeraadka aad ku darteen ka saara waxaan leeyahay jawaarin waxaan leeyahay shirkii Baydhabo waa tagtay gobolada madaxweynaha already go'aankeeda wuu gaaray madaxweynaha si uu gaaray laga dhigo oo reer Baydhabo goboladaas Jubba ka tirsan already raacay iyo laga saaro 6 gobol ay ku sheeganayaan saasa wax ku xalilay saasa ku xalilay because wax u dhaceen way qolo walaalahan reer Puntland waxaan oran lahaa reer Puntland waxaan oran lahaa walaalayaal da aniga ahay maanta weerar wasaare waa u tagi lahaa waa dhageysan lahaa waxay sheeganayaan waxay dawladda xaq ugu leeyihiin waa siin lahayn waxay dawladdu ka rabtana waa ay kuna bixin lahayn bixiya oran lahayn dawladda ka rabta maadaama xoolaha dekadii qarankii wadanka qaar kamid haystaan waxaan oran lahaa soo dira waxaad dawladda xaq ku leedahay adinkuna waxa xaq u leeyihiin qaat annaguna ku dulminna ma taqaanay ay kuna isla dulmin annaguna aan dulmin waayahay dabcan weli waa soo noqonaynaa qadka telefoonka dadka waa u furan yahay waana soo dhaweynaynaa barnaamijka si ay nagala qayb qaataan dabcan barnaamijku waa barnaamij aan ugu talagalnay tacsida xildhibaan warsame iyo weliba aan ku wareysanayna siyaasigan da'da yar oo horay isu soo sharaxay inuu noqdo xil ra'iisul wasaare laakiin nasiib darro daadku la tago ragga culus saxrada yimaadeen haddana xoogaa aad moodo inuu aad u salugsan yahay qaabka wax u socdaan waayahay qofka ugu horeeya waa soo dhow halo way maqashaa halo hadduu ku jiro qof waa soo dhaweyna hal ma nooshaa waaya haddii adiga aan kuu soo noqda cabdi mar baad wax isku tijaabisay wadankana wuxuu u baahan yahay cilmi iyo caqli iyo waayo aragnimo iyo karti iyo aqoon iyo waxdaas waa loo baahan yahay marka haddaad tala bixin samayso maxaad ku tala bixin lahayd والله war fiican waaye waxaan ku bixin lahaa maanta xaaladu waa adagta waa ogtihiin dalkii Soomaaliya dhibaatada ka taagan caafimaad darro waxbarasho la'aan nabadgelyo la'aan waxyaalo badan baa ka taagan waxaan leeyahay qofkii madax noqonayo kuwa hadda soo socda iyo kuwa hadda joogaba war dalkiina daacad u noqdo umadiina daacad u noqdo si wax aninka in ka harasamay hadaa dadku iyo umadu dhargaan adinkuna waa dhargeysaan
waxaa la rabaa inaad mataqaanaa in markii aad muddooyin markan ka dhacdo inaan dibadda u cararanayo meelahaas ka aadaane dadka wax u qabta ummadda wax u qabta ummadda waxay u baahan yihiin desperate oo cadaalad u sameeya waxa dhacaya waa ujeedaan ummadda dhibaato ku dhacaysa dhaca dila iyo wax ka socda waa ujeedaan dadka u cadaalad sameeya u dadaalana adinkuna sharaf baad yeelanaysaan ku joogaysaan waddankiini waxaad beri ku faantaanna waad helaysaan haddii dhanka kale laga fiiriyo haddii dhanka kale aan ka fiirino rajadaada ka waran mustaqbalka haddii aad hal mar soo xoogaa yaa anigu waxaan waa mar kale waa isku daya insha allahu laakiin waxay noqonaysaa markii shacabka soomaaliyeed ay ku wax dooranayaan oo intay yimaadaan from corner to corner dalka ay wax ka doortaan oo codkooda xaq u leeyihiin oo qofkay rabaan ay siinayaan oo kii berina kii dhibaateeyeen ay u fudgurayeen ma dambe laakiin inta haddee hawsha ay taagan tahay hal baarlamaan oo meel fadhiya oo nin la xisaabtamaya jirin oo mataqaanaa wax kala celinaya jirin way adag tahay inaan isu sharaxo ama qof lamidana isu sharaxo kii isu sharaxana muddo ma qaadan doono tan waxay dowladda hadda jirta hadda maanta dowladdii dadku ugu rajo fiicneed bahay maantana waxay ugu noqotay tii ugu rajo xumeed example waxaan ka soo qaadanaa gabar ka mid a gabdhihii baarlamaanka ku jira markay dowladdii socotay saacid waxay 14 sana ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya midtan ku xun weliga ma arag bit baarlamaanka xun ma arag wax kumil gaar minna kama bixin waa dareemaysaa ma fiir baarlamaankii baa soo qaylinaya waa u jeedaa mid wax ka socda waxaan kale rabaa in halkan ugu daro inaan u diro message walaalahay baarlamaanka kuwii taageeray saacid waxaan leeyahay waa arteen wuxuu ku dhacay walaalkeen Allahu naxariista Maxamed adinku waxaan leeyahay meesha inaad sameysad inaad u tagtaan ciidamadan UNISOM oo jooga Afrikaaniska meesha jooga oo aad weydiisataan mataqaanaa protection inaad weydiisataan oo dad idinka ilaalinayaan haddii mataqaanaa aad taas idinka ka weydaan waxaad yeeshaan lama maadamid meel inta xaaladdu ka degayso gobolada kale Soomaaliya nabadda aada ama wadamadaas Afrikaaniska dariskana aada because mar dambe ma rabna inaan aragno baarlamaan Soomaaliyeed oo la dilay ma aragno qof Soomaaliyeed oo la dilay ma rabna inaan aragno mar dambe mataqaanaa qof kale oo mataqaanaa dhibkan oo kale soo gaaray marka waxaan leeyahay mataqaanaa walaalayaal is-ilaaliya meel kasta ay joogtaanba haddii dhanka kale aan fiiriyo dabcan xildhibaanka Allah u naxariisto aad baan uga xunnahay geeridiisa malkumuudkuna waa wax jira dad badan baa xamar ku dhinta oo maaragtay ilaa hadda cid sheegatan xildhibaanka lama arko marka message-kan hadda xildhibaanada aad u dirayso waxaad moodaa xoogaa maaragtay cabsi gelin badan adiga cabsidii kugu jirtay inaad adigii haddana aad soo lama oran karo cabsidii adiga ku gashay inaad soo sharaxdo xoogaa xildhibaanadina inaad gelisa rabtaa ma dhahayo sababta meesha wax ka jiraan walaalooga dadka Soomaaliyeed oo meesha jooga ma taqaanaaye dib weyn baast waad u jeedaa laftigooda maalin kasta dilka ma maqan laakiin inta badan waxaan sheegnaa ma taqaanaaye xildhibaanadan inta badan dadku sheegaane mise wariyaa la maraya nin loo soo qabtay maanta inta wariya la dil hal nin loo soo qabtay ma jirto because meeshii ma jirto cadaalad waxaa maqan justice systemkii oo dhan baa maqan ciidamadan hadda meesha noo jooga aqoon mare ay ku baaraan cidka cid dishay iyo cid ku dabagalaan ma jirto nin askari oo aan mushaarkiisa bala cid ma dabagali karo waxna ma baari karo marka waxay ka mid tahay waxyaalaha caqabadaha hor taagan oo u baahan qof good leader oo dadkiisa daacad u ah taas way waxa baarlama ay waxaan leeyahay because hadda shacabka soo oran lahaa protection weydiista Amazon laakiin ma siinayaan laakiin nimanka baarlamaanka waxyaalaha u yimaadeen wax ka mid ah dadka madaxda iyo dawladda iyo meelaha dawladda inay ilaashaan iyo inta hawsha u yimaadeen bay ahayd taas waa u dhahay meel dadka Soomaaliyeed u heli karo wax maanta ku ilaaliyo Muqdisho kullu waa siin lahaa because waa atamid walba waliyaha la dilay aqoon-yahankii baa la dilay qof kastana meeshiisa lagu weeraraa haddii adigu aad ahaan lahayd mas-uulka meesha jooga Soomaaliya muddo badan bay dagaal sokay ku soo jirtay 22 sano dagaal sokay ku soo jirtay dabcan xagga nabadgelyadana waxaad moodaa xoogaa in maaragtay hawluhu ay aad u adag yihiin in protection la siiyo ama la ilaaliyo dadkii maaragtay ummadii oo dhan la awood haddii adigu bal ku soo bixi lahayd waagi iyada maxaad qaban lahayd waxaan qaban lahaa because waxyaalaha hadda aan ku sheego ahaa ma taqaanay qofka ciidanka inuu hadaa rabtid qofkan inuu ciidanka wadanka wuxuu u baahan yahay ciidan haday police yihiin iyo military yihiin hadaa ninka ciidanka marka hore asaga aan la siin wuxuu u baahan yahay asaga marka hore aan laga siin mushaarkiisa because nin askari oo ka fakaraya reerkiisii wuxuu cunaan ka fakaraya seebuu u difaacaya ammaan iyo nabadgelyo u difaacaya waata ninka seebuu rondo u sameynaya magaalada ku wareegaya because marka asaga la kaafiyo baa dadkii asaguna kaafin karaya
laakiin haddaan asagii wax la kaafin oo asagii marka hore wax laga qaban hadda example aan ka soo qaadaya safarada ay madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda ku baxeen dadka dibadiisa waxa kamid ah in ka badan 50 safar waa hal safar baan waxaan rabaa inaan ku tuso oo ku yimid mataqaanaa madaxweynaha Soomaaliya 7 May oo ku yimid halkan oo joornaalka Yasaan uu ku eedeeyay dowlad Cameroon ku eedeeyay inuu mataqaanaa ka baxshay in lagu soo qoray oo taas tahay oo heerka Somali president luxury trip to your expensive 50k kun baa ku baxday safarkii madaxweynaha ku yimid Soomaaliya halkan oo dowladda Ingiriiska baxsay oo Cameroon laga daba qaylan leeyahay qalad baa inaad lacagtaas ku bixiso nimankan dowladdu ayada casuumatay dowladda Ingiriisku ayada casuumaad u fidisay shirbaan halkan lagu qabanayay dowladdu wax casuuntana xaq bay u leedahay inay lacagta bixiso marka ma ahan wax jeebka ka baxay dowladeena wuxuu ahaa wax lagu casuumay marka shacabku qayliya haduu rabo laakiin dowlad casuunta meesha maraysa Soomaaliya way jirto shacabka laakiin hadda waxa qaylinaa dadka tax pay alliance-ga la dhaho oo ah dadka u dooda taxiga lacagta canshuur dadka laga qaado inuu ku baxdo meel muhiim ah bay dadka daba qaynaa dowladda Cameroon dadka bari u food gareyn lahayn waay waxaan ka wada taas lacagta madaxweynuhu hal safar ka soo qaad intaas ku baxday lacagta inta badan madaxweynuhu ma yacsumin dalka adduunka hal shirar kaliya la casumo oo kuwa shirka Europe kale kiis halkan kale ka dhacayo kale balaga casumo laakiin shirar kale sida general lagu hadlay Afrika inay dhaqaalaheeda soo kordhin lahayd Afrika soo kordhin lahayd mataqaanaa nabadgelyadeeda wasiir baa loo teekaray madaxweynaha ma ku tago lacag badan ku baxaysa lacagtaas badan how many qof 1 year isbitaalkiis daawadiisa ku filay waxay ku filayd mataqaanaa askar badan mushaarkooda ku filay marka intaas dhan wax lagu qaban karay waayahay dabcan dadweynuhu telefoonka nagala qayb qaadan karaan haddii la yiraahdo waana soo dhaweynaynaa waa soo dhaweynaynaa dadweynuhuna qadka telefoonka nagala qayb qaadan karaan inkastoo aan telefoonkii bedelay oo mid kale ku bedelay halo meemasha halo meemasha أنا waxaan ka codsanayaa waxaad furtaa telefoonka hadda qadka ku jira waxaad furtaa voice ka u fur telefoonka hadii la yiraahdo sidaas la isu maqli karaa voice ka caadiga u fur oo maartay u dheeray hadii la yiraahdo halo meemasha halo meemasha السلام عليكم عليكم السلام walaalow soo dhawow magacaaga meesha ka soo hadlayso waxaan ka hadlaynaa hadii barnaamijka dadka dhex uga soo biirtay markii hore waxaan tacsiyeenaynaa xildhibaankii Allah u naxariistay xildhibaan Maxamed Warsame Faysal oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho kadibna ninkan dhalinyarada siyaasiga ah aan sii wareysanaynay ra'iisul wasaare ahaan ninka ku wanaagsan baan ka doodnay ku soo dhawow barnaamijka maxaa ku daraysaa walaalkiis Allah u naxariisto إيمان مدرس أنا ويد هلا السلام عليكم عليكم السلام واحد والله يا سوري ولا ما قاعد هلا هلا يس ولا ما قاعد ماشي كسر الله تفضل ومقعي هو اسماعيل سودو هذا سو كوبان حكوا لنا برنامج وحكسر لي ملبن استراليا سودو اسماعيل واحد دوري ما دام اساس عطي موشنكي برلمان كلا كاري نمكي برلمان تاغيرتنا متغنا تاعي تاغيرتنا marka arkay inay arrintu soo dhacday markaasi workout sameeyaan oo iska baxaan maxaa ku talin lahayd adigu waa intaas weydii la waaye aad baad maasanta Ismaaciil waana ka kaalmeynaa barnaamijkii aad nagala qayb qaadatay dabcan qadka xiga waa soo dhaweynaynaa hadii ku jira hal barnaamij halo assalaamu calaykum asalaam walaal magacaaga meesha ka soo hadlaysa dareenka ku barnaamijka dabcan aragtidaada ku aad barnaamijka hadii aad la socotay oo ku saabsanaa tacsida xildhibaan Allah u naxariistay Faysal iyo waliba ninka dhalinyarada oo hadda ka hor isu sharaxay ra'iisul wasaarnimo aan ka wareysanaynaa arrimahaas maxaa ku dhashay barnaamij aniga waxaan leeyahay Allah u naxariistay dhimatay sawirey baan hadda naga siiyo laakiin waxaan rabaa inaan iraadaniyo hadda madaxweynuhu inta TV-gan dhageysto talada horta walaalkay meeshan fadhiyo ma qaadanayo horta waxaan dhihi lahaa asiga arrimaha negative
kasta oo inuu saayelay ahayd meel uu ka dilisana iyadoo la arag kada wuxuu leeyahay sallallahu wuxuu leeyahay anoon fikirkiisa ku caabeynaynin gudoomiyaha baarlamaanku ma ahayn inuu saas yeelo oo leeyahay xaguu dilisana muxuu dilisana ma sharci meel ku qoran uu dilisaya fikirkiisa uu ka hadlaya gudoomiyaha baarlamaanka iyo 200 iyo dhowrka xildhibaan uu gudoominayana waxay go'aamiyeen inta ka tashteen fikirkooda iyo say la tahay in ra'iisul wasaaruhu hor imaan asagoo wuxuu leeyahay adduunka hore ugama dhicino sidaan ma ahayn inuu yeelo marka waa su'aal aad weydiinaysid oo leedahay jawaab naga sii xaaladii hor taalla inaad saad ku xalli lahayd ka fikirto loo baahay mas'uuliyadana meesha jooga aad baad u mahadsan tahay waan kaa mahadcelinaa barnaamijka nagala qayb qaadatay dabcan su-aashaasina waa u taallaa wuxuu daliil u hayo cabdi haddii daliil jirto halo waa maqashaa qofka waa soo dhaweynaa halo 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 dabcan waa soo dhaweyneynaa dadkana mar walbana diyaar baan unahay inaan soo dhaweyna haddii la yidhaahdo aragtidoodana ay ka dhiibtaan una tacsiyeeyaan xildhibaanka allah u naxariistee ninkii ugu dambeeyey soo wacay Ismaaciil Australia naga soo wacay saan filahayo wuxuu ku leeyahay dhalin badan baad soo jeedisay baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka aad waliba eedaysay maxaad dastuuriyan u haysaa qodob iyo labo haddii aad dhalishay aad soo jeedisay balse maxaad dheeriya naga siiba ku leeyahay ha waxa waya walaal qofka xaq buu leeyahay qof kasta oo Soomaaliya xaq u leeyahay waa hadii qofku wax lagu hayo inuu hor istaago shalay markii la dooranayay ninka la yiraahdo ay sheegeen Saacid baarlamaanka ka hor yimid marka soo doortay in la proof garay baarlamaanka hortoodu yimid ayakuna hor yimid ayakana ka dhageystay maantana sidoo kale uu lahaa inuu hor yimaado oo la dhageysto waliba asaga soo codsaday qadka telefoonka fiirina halo ma marashaa qof kooy halo السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام walaal TV horta aad iska gaab adoo raali marka ila hadlaysay qadka telefoonka igala soco magacaaga iyo meesha soo hadlaysay waliba aragtidaada عليكم السلام TV horta aad iska gaab adoo raali وكل قابي waayahay soo dhaw magacaaga iyo aragtidaada ku aad barnaamijka aad socoto magacayga Umar Salaam Umar Salaam soo dhaw maxaa ku dhimeysaa barnaamijka adoo soo koobay fadlan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عجيب وحا إن بدنا التلفزيون اللي يسنيي وحا أركيا دكي أقوي هذا اسكو شيغايي ومر والبا وحا يو أود ولا حين أحد لايدا ومدو وأمد إسلامة إلهي وحوصا قبننا من صوماليا إيا من تلتونا ما قبن كارو إذا إلهي كتاب كتنمو شيغي ويل كان دلنيانا هم ماشي صفر وحبات سوين كرا أما وحبات قبن كرانا وخراسيا منهج كسماوية وايو إلهي وحنو أبورتي inaynu caabudno mooye inaynu wax kale qabanno nooma abuuran nin wax samayn kara oo bini aadami ma jiro masaa'ibka Soomaaliya haystaana wax kale maaha waa masaa'ib ka dhashay duruubtii aynagu gamceena ku samaysanay marka waxaan idinka codsanayaa dadka telefishinada rangaranaya iyo dadka ay la hadlayaan inay af islaam ku hadlaan saaka waxa arkayay kuwa ka hadlaya ayaa ka hadlaya wax la yiraahdo conflict and resolution oo waxa laga soo dhigay jaamacadahan oo by experiment lagu helay noo akhriyay markii ka tagayno manhajkii samaawiga ah ilaahay noo sheegay xogaalka ah Umar Salaam Umar adoo raaliya waqti badan baan ku siiyay dawladdeena aan ku daray wax yar dawladda Soomaaliya waxa loo qorsheeyay inaanay dawlad ka dhalanin markii la sameeyay gobolada markii la sameeyay federaalka markii la sameeyay 4.5 waxaas oo dhan waa ratibaad la ratibay inay sinaba ayaan u suura gelin dawladnimada Soomaaliya inay adduunka dhalato maxaa xala Umar Salaam adoo raaliya aan ismaqallo Umar dib loo wareejiyo Umar ismaqallo ina Umar adoo raaliya fadlan kaliya hadlan aan ismaqallo su'aal baa inaan ku weydiin rabaa nin mas'uul ah tahay waan ku aqaanaa Umar Salaam saraakiishii horaad ka mid tahay
عمر سليمان محو حالك كجرا سؤاشان كويدينا waa midaas محو حالك كجرا islada يا معاك سؤال هذا كيف أفضل ما يه محو حالك كجرا عمرو ما دام aad intaas oo sheegtay حالك محو كجرا baan islada حالك وفري إيش لكن ما اللي يا بطاري soo dhawow حالك u sheeg umada عمر حالك وحويان الدنيا أنفل عمر ما مغشا حالك ومسكرية حتى إنها لسكري حالك وإن الأمة النقطة وحي حق وإلهي نوشيكي عمر سليمان aad baan u mahadsantahay waana ka mahadcelina barnaamijkan nagala qayb qaadatay hadalkaagu wuxuu ku soo ururay xaqa ha loo noqdo xaquna waa wax waajib in loo noqdo waa eray aad u macaan oo aad u fiican aad baan u mahadsantahay waana kaaga mahadcelinaynaa barnaamijkan nagala qayb qaadatay hadduu ku jiro qofka xiga waa soo dhaweynaa hadda halo ma maqashaa halo waayahay aan ku soo noqdo adiga عمر سليمان wuxuu ahaa rag aqoonyahanada Soomaaliyeed ka tirsan dabcan Australia ninkii ka soo hadlana sidoo kale asna ahaa kamaana hadlin waxbaan qabanayaa maanta Umar Saleeman soo hadalka u fahmay barnaamijkeenu caaw wuxuu ku saabsanaa maxaa xalku ku jira iyo ra'iisul wasaaraha cusub nin caynkeebu noqon doona iyo waliba tacsida aan u fadhino oo ah maxamed warsame barnaamijkeenu saas ku koobnaa marka adiga bal adoo Umar Saleeman hadalkiisa tixraacay maxaad ka oran lahayd Umar Saleeman waxaan leeyahay waa salaamaya Umar Saleeman أنا مليه متقنا وحي إلهي وقال لهم بلا سمين كريا لكن ذلك وين الله نمانه ماشي وحن كهذا إن ذلك ماشي كم قية إن وحكم قية شيء إلهي بقولت إنه وحن نقناه لكن وين لو دقاقة شيء إن لو دقاقة هذه سي إلهي لو لا تلا صارنا هايو وين لا دقاقة تيبا كم قن ماشي ذلك يبا كم قن waxa ka maqan qofkii inuu la yimaado oo dadaalku adoo raali dadaalku xageeb uga maqan yahay tusaale kale markaan soo qaato ereyadaada hore aan ku noqdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud aad waxa tiri aad buu sanadkan u socday hadduu soo socon lahayn oo adduunka oo dhan albaabkooda soo garaaci lahayn oo UN-ka u tagi lahayn oo Afrika u tagi lahayn oo Carabaha u tagi lahayn oo iska fariisan lahaa soo ma ahaateen in xaaladdu ay dib u sii dhacdo dadaal buu muujiyay soo lama dhihin kara intaas oo socodkaas oo dadaal ka mid ah socodkaas oo dhan runta anu horta malihi madaxweynuhu ha fariist laakiin waxaan lahaa haddaad fiirisid shirarka caalamiga adduunka waa shir markiiba sanadkiiba mar la qabto laakiin in ka badan 50 flight oo kiiba private la qaadanayay oo mid ka mid ah kusii konton waddanka Ingiriiska ka baxshay asagii oo soo jeeb ka bixin kii asoo jeeb ka baxsanayo because ma awoodi karnaa waay anagu shirgu tagna waxa isku qiyaastaa faa'iidada laga helay safarkaas iyo socodkaas iyo kulankaas madaxda adduunka la kulmay faa'iidada laga helay iyo qasaaraha ka balance hadda waa su'aal fiican sheeg waxa la soo fiiriyaa intaas madaxweynuhu socday muxuu faa'iido soo dhaliyay hal madaxweynuhu soo dhaliyay in Soomaaliya in dawlad weyn loo aqoonsado soo dhaliyay laakiin maxay timid marka in الكفر آخر كقدام بيه وإحنا صار لسهاي ونكون شقبنا إنه كل ما تو إن يوروبيان كيف فرم تدبدي ماي ممكن كان يمد إلا تدوي لاتك هذا نوفمبر مع لو ويكور أو ويكور إن الله ده سومالي واحد العجق الله سينا يا ما شرته مدة كلا إن مرة بدنا الكو إيه إن كوربتنا UN report وإحنا وضمنا نمبر 1 أدونك وضع ويشر كوربشن maxay marka taraysaa madaxweynuhu socodka sameeyay intuu maray hadii la dhahay maanta hadii la dhahay wax lacag la ku aaminay dad anako dawlad sheeganayna qaran sheeganayna oo wadamada adduunka dhex fadhina intaas oo wadanaas ku yimid mashirkaasi in la dhahay Soomaaliya lacag lama siin the reason loo siinay they don't have public finance aan lacag lagu aamini karo macnaheedu waa they corrupted hal su'aal ku weydiiyo in aqoon-yahana tahay wadankaana waa joogtaa Soomaaliya intaas oo bilyan baa lagu sheegaa in la siiyay wax soo gaaraan waa wax yar waxay ku dhuntaa meel dhexe oo ayagu ay ugu tala galeen eedana Soomaaliya shabada dusha laga saaray waa wax caadi ah iska jira marka ma la dhigi karaa waxyaabaha la sheegayo dhan waa waxyaabo aad looga badbadiyay way jirtaa horta hore lacag badan in la dhahay waa ku baxdaa ninka in European-ka u qaabilsan ministerkooda aadamna wuu sheegay wuxuu dhahay lacag badan baa Soomaaliya ku baxday lacagtina waxaan siinoo dhahay beeraha soo isagoo noo sheegay
beeraha siinuu dhahay waxbarashadaan siinay waxaan siinay biyaha nadiifintoodan siinay horumarintaan siinay wayna jirta waxyaalo project badan way qabteen laakiin ma hubo lacagta ay sheegteen iyo projectkaas inuu isleeyahay laakiin waxaa lacagta inta badan ku dhintaa qolaq la sii siiyaa qandaraas qolaka la sii siiyaa mid kale la sii siiyaa dhexda ku dhintaa laakiin waxaa la rabay dowlad la xisaabtanta at least warqad lacag annakeenan siinayn inay dhahaan mataqaana la xisaabtanto la helo okay projectiga sida ugu wanaagsan oo mataqaana dadku ugu faa'iideysan karo inaan sameeyno waaya barnaamijka guntiisa gabagabadiisa aan maraynaa bal adiga cabdi ahaan maxaad kula dardaarmaysaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed caalamka inta aad adigu bal inta adoo waqti fiican qaadanaya maxaad dardaaran oo aad u jeedinaysaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan inta aad isleedahay arrimaha Soomaaliyeed damba ugu jirto waxaan horta halkan markale ka salaamay shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u diro maanta war Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay qof daacad oo dalka iyo dadkiisa wax u qabto oo hamil oo aan dhin dawlad baan iska waxbaan qabanayna mehe target leh ilaahayna tala saarta waxaan qabanaynaa sanadkan qorshaha noo yaala waa kan waay from beginning to dhamaad hadduu markuu sanadka dhamaado wayna dhaa qorshahan la nimid waa kan hadduu qabsoomayo muxuu qabsoomi waayey inta waliba sanadkii la gaaro wayna marka hore la sii fiirsha Allah waxaan wuxuu la qabsoomi waayey waynaan daba galnaa waynaan ogaanaa taas oo kale in la sameeyo waay in wax la dadka daacad loo noqdo waddanka dhibaatada isdamariska laga daayo haddaan one more message siiyo madaxweynaha Soomaaliyeed waxa la madaxweyne ninka soo wasaaraha kolba qof baa soo dooran wasaaro soo dooran doonta u ogolow ninkaas inuu shaqadiisa qabsado ha u soo qorin inaad wasiiro u soo qorto adoo u samayn asagu wuxuu rabaa ha samaysto waxaan kaloo leeyahay wasiiradii Soomaaliya fashilka ku dhameeyay sida wasiirka arrimaha dibadda kuwii ka qayb galay ma taqaanaaye meesha la yiraahdo baarlamaanka ayagoo dowladda ka tirsan dowladooda wax ka riday inaan lagu soo darin dowladda soo socota because taas maxay keen doontaa in hadda dhibaatada naasta ka badan haysato madaxweynaha maasika u dambeeya u diray waxay tahay madaxweyne maxamed warsame wuxuu ku dhintay madaxtooyada maxamed warsame dilkiisa anigu maanta u eedeyn maayo nimanka la yiraahdo al-shabaab iyo cid kale ku eedeyn maayo waxaan ku eedeynayaa inaad maanta dad kale ku eedeynayaa laakiin waxaan rabaa inaad ninkaas magtiisi aad bixisid adigoo dowladda Soomaaliya madaxweynaha hadda u ah matalaya ayakii in ninkaas aad magtiisi bixiso oo dadkiisina aad siisid وانا السلام عليكم ورحمه الله aad baad u mahadsantahay dabcan barnaamijka waxaan jeclahay inaan intaa ku soo koobo waxa barnaamijka iga qayb qaadanayay siyaasi daayar Cabdi Maxamed Warsame oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London ee dalka Ingiriiska hadda ka horna isku dayay inuu arjigiisa geystay dawladihii ra'iisul wasaaraha isu sharaxay laakiin nasiib darro rag ka culus baa meeshii yimid oo asaga laftirkiisa waa kan London baa lagu soo celiyay London buu la joogaa dabcan mustaqbalkana uu isku dayi doonaa saan filayno sidoo kale barnaamijka waxaan jeclaa caawa inaan si fiican dadweynaha ugu furo qadka ay igala qayb qaataan tacsida xildhibaan Maxamed Warsame oo ku magac dheeraa Faysal Allah u naxariisto oo dhawaan shil qarax miina ugu dhintay magaalada Muqdisho waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allahna u naxariistaan leenahay sidoo kale waxaan tacsi gaar u dirayaa anagoo ka faa'iideysanahay fursadan Corneel Cabdiwali Sheekh Maxamed oo asaguna ku guuriyay magaalada Muqdisho oo ahaa nin caan ah oo magaalada London iyo waddankoona laga yaqaan waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun barnaamijkan waxa dhanka farsamada aad ka quruxda badan iga caawiyay saaxiibada oo isku duuban Cabdi Xaafid Maxamed Yaasiin iyo waliba Cannaan waxaana qayb ka ahaa barnaamijka Cabdi Maxamed Warsame oo asaguna ahaa nin dhalinyaro siyaasi ah waxa la socodsiinahay anigoo Abdurrahman Abdullaahi Shirwa intaan barnaamijka mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo